كبير كمهنا لياش عافمات كأنه بلو يرنود بل أنسفي عن وحوي دينه وحي كدم أن مركا هاري لبدا قيبود عافمات من نوع دولي من نوع برايفت لمن يوح قارو أريقان آد وسو وقادي من أرتريدي شيء وحانجي دخاتيرتا برايفت كا ضد قلين waxaa iga batay dawadoodii iyo qaliinkii waxaa iga badnaa lacag ahaan sariirta markaan xisaabiyay waxaa iga badnaa oo iga lacag badnaa qaliinka lacagta aan ku bixiyay sariirta lacagtii ay qofku ku jiray intii la baarayay sariirtu ku jiray markii la qalay sariirtu u jiifay intaas waxay iga badnayd qaliinkii iyo daweyntiiba dhakhtarka weyn waxyaalo badan boqolkiiba konton wuxuu ka wanaagsan yahay kuwa private-ka wuxuu kaga wanaagsan yahay koow sariirta 6,000 baa marka hore 10,000 baad marka hore bixinaysaa qofka ilaa uu ka baxayo 10,000 buu warqad yar oo loo qoray uu ku hurdayaa sariirta sariiruhuna waa sariirihii ka fiican sariirahooda iyo sida haddeer facility-ga loogu sameeyay hangulufyadan aan iibsanayno waxay noogu bedelaan waa booska maadaama hadii la yiraahdo la siiyo dadku iska guranayaan laakiin marka facility-ga la sameeyo lacagta yar ee la ururiyo loogu sameeyo sariiraha loogu nadiifiyo shaqaale joogto ah loo sameeyo wax weyn bay soo celinayaan waxay kaloo dheer tahay private-ka waxay kaloo dheer yihiin hadii ay wax ka go'aan oo aadan haysan lacag la'aan baa wax lagu sameeynaya agaasimaha un baa warqad loo qorayaa qofkaas wax ma haysto dawadiina waa ka gooda waxa kaloo saddexaad waxa kaloo ay kaga duwan yihiin waa meel mar walba saacadii wax kugu dhacaan aad timaado habeen bar haday tahay aad helayso emergency ku diyaar ah kuwa kale dhakhtarku mar haduu intiisa hore ka shaqeysto ma soo noqdo mana helaysid ilaa galinka dambe casarkii warqadaha loo jaro dhakhtarka weyn waa lagu liibaanay alxamdulillah rabbil caalamiin waxyaalo awal uusan haysanin hadda waa loo keenay oo awal meelaha kale laga doonan jiray baalka la yiraahdo MRA oo baalka ugu qaalisana ayuun baan hadda wali la keenin dawada dhakhtarka weyn taala dawooyinka suuqa laga gadanayo horta waxay ka dhiman tahay haaf mar labaad dawada laga gato dhakhtarka haday dhacniin u soo dhowdahay ma ay dhacday ma haday u soo dhowdahay waa la daadinaya waa la gubaya waayo dawada waxay ka soo qaataan meel gaar ah oo waa loo keenaa miya marka wixii dhacaya ma qaataan mana ogola ninka agaasimuhu in meesha lagu hayo waa la gubaa wax badan oo ummadii u faa'iideeyay yaa meesha yaala waxa ka dhimanna ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay u soo sahalo waxa keenaya qarash la'aan waxa soo haray dhaqaatiirta private-ka waxaan waligood ummadu aanay ka soo kabanayn bay dadku ku hayaan waxa kamid ah nin gabigiisu aan lacag haysan baa $40 ku galaya meel aragti uu $40 ku galaya shilin uma harin waxa u dheer baaristii iyo balka jinnigii waxaan oran lahaa dawladdu sida ay sicirka cuntada u goyso wax la gadan maayo nin baa nin arkayee inay sicir u goyso dhaqaatiirta isku mid ah anu waa taladaas waa soo jeedin lahaa sicir isku mid ah inay aragtida u goyso bal dawada kale iyo qaliinka kale waxay nagaga cunaan inay ummadda sicir isku mid ah 10,000 iyo 20,000 ama $10 ba haatay in loo gooyo aan la dhaafinin salaamu calaykum